shacabka ku soo dhawaada barnaamijka oo aanu maanta ku eegi doono gantaal ay Iran farsamayso oo ay faraha ka taageen Mareykanka iyo Israel maadaama ay adag tahay in la qabto balse aanu marka hore ku bilowno Facebook ku adeegsada magaca honorary Bahama Kubwa MP ayaa waxa uu bartiisa Facebook ku faafiyaa muuqaalo uu Soomaalida uga dhigayo dad gacan xoogan ku qabsaday dalka Kenya isla markaana la wareegay taasoo keeni karta nacayb loo qaado Soomaalida iyo ganacsiyadeeda una baahan in laga gaashaanto ninkani badiyaa adeegsada xeelado halis ah taasoo ah inuu soo duubo dabaqyo dhaadheer oo uu leeyahay waxa iskale ama dhisay Soomaalida kadibna wuxuu barbar dhigaa mid ka gaaban ama ka foolxun sida uu dhigayo oo uu leeyahay waxa iskale qowmiyadka kale ee ku nool Kenya gaar ahaan kuwa Kikuyada oo alaaba isu arka in Kenya ay iyagu leeyihiin Soomaalidana u arka halis ku foogan oo ka dhan ah kontroolka ay dalka Kenya ku haystaan tusaale sida aad arki kartaanba muuqaalkan wuxuu ku dul qoray sidatan Soomaalideena Ilaah ayaa barakeeyay Kikuyadana malaha alle ayay khalad ka galeen kadibna waxa uu raacinayaa ereyo af Ingiriisi ah oo macnaha noqonaya Soomaali ayaa meesha soo gashay Kikuyo iyo Luwow maxaa meesha ka socda muuqaal kale oo uu isla ninkani soo dhigay wuxuu isbarbar dhig ku sameeynaya laba dabaq oo kale oo sida caadada ahayd uu midna qurxoon yahay midna gaaban yahay oo uu ku kala sheegay inay kala leeyihiin Soomaalida iyo Kikuyadu muuqaal kale waxa la arkayaa isaga oo duubaya gabdho yaryar oo arday ah oo uu leeyahay waa Soomaali waa gabdho yaryar oo xijaaban oo iskuuley ah waxaanu si jees u leeyahay si qurux badan ayay u labisan yihiin tii ay saxaafad ahaan xitaa khalad tahay in la sawiro ama la duubo ilmo yaryar oo aan haysanin ogolaanshiyaha ama raalinimada waalidkood ama cidii kale ee ilmaha yaryar ka mas'uul ah balse inta sawiray ayuu waliba sii faafinayaa isaga oo aan cidna ruqsad weydiisanin dad badan ayaa ninkan ugu baaqay inuu joojiyo beegsiga Soomaalida iyo ku soo jeedinta qowmiyadka kale ee Kenyaanka taasoo abuuri karta in iska hor yimaadaan dadka dalka ku wada nool balse isaga oo qurama ahane waxa jira dad badan oo Kenyaan ah oo si gaar ah u farmuuqa Soomaalida qaarkood baana Soomaalida ku tilmaama dad Kenya gashaday hanti ay meel kale ka soo dhaceen sida ay yiraahdeen khaasatan Mareykanka amaba ay burcad badeed ku keeneen sida ay sheegaan waana fan hadal halis ah oo u baahan in laga jawaabo haddii kale baan fakatay hadhow runi gaari mayso waxaa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mandy Palace Restaurant oo lagugu soo kordhiyay adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha aroosyada ducooyinka sanad guurada shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah meesha ay ku taalo shaashada ka milicso ibkan Iran gantaalka lagu magacaabo Khaybar Shakan ayaa imika noqday midka ay Tehran doorbido marka ay wajahayso Mareykanka iyo dalalka ologala ah ee ku yaala gobolka Bariga Dhexe gantaalkan ayaa lagu sheegay mid raqiis ah guurguura isla markaana uu shiishkiisu aad u saxan yahay isaga oo gaari kara ugu yaraan 1400 kilomitir waxaan Iran dhawaanahan u adeegsanaysay weerarada halista ah taasoo ka dhigtay mid uu Mareykanku u caalweysan yahay sida uu qoray warqaadka afka dheer ee Wall Street Journal oo soo xigtay saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi halka waxaad ka arki kartaan muuqaal uu codeynayo aabaha aragti dhagareedka Alex Jones oo qiranaya inuu xaalku ku xun yahay Mareykanka iyo Israel oo xitaa ay sheekadu nuclear gaari karto maadaama ay gantaalihii qabtayaasha ahaa gabaabsi noqdeen oo daroonadii lagu ridayo qoriga korontada ku dhaca ee loo yaqaano Gatling gun khaasatan nooca Vulcan-ka Israel's now deployed its nuclear submarines that have been seen servicing off the coast of Jordan. Here you see a Vulcan cannon, Gatling gun, taking out Iranian drones. These are used as a last resort, and the U.S. is running out of ammunition. Khaybar Shakan, ama burburiyaha Khaybar, oo loogu magac daray qasri ay Yuhuud lahayd oo ay dul mareen dagaalyahano muslim ah maalmihii hore ee soo bixitaankii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sida uu sheegay warqaadka Times of Israel ayaa ku shaqeeya shidaal adka ah waana gantaal ridada dhexe ah oo ka duwan gantaal ay hore Iran u adeegsan jirtay oo lagu shubi jiray shidaal dareere ah taasoo ka dhigan in Khaybar Shakan si dhaqso ah lagu diyaarin karo maadaama uu shidaalkiisu ku sii jiro isla markaana lagu qaadi karo lagana gani karo gawaari kala duwan taasoo adkeynaysa in la burburiyo marka ay raadinayaan diyaaradaha Israel iyo kuwa Mareykanka oo alaaba beegsada meelaha laga soo gano gantaalaha Iran sida ay khubaradan military u xaqiijiyaan warqaadka WSJ walaal sidoo kale jirto in Mareykanka iyo xulafadiisu ay soo hoobiyeen gantaalo badan oo ah Khaybar Shakan intii uu dagaalku socday mid ka tirsan saraakiisha Mareykanka ayaa u sheegay Wall Street Journal inay qaar badan gudbeen oo ay gaareen bartilmaameedkoodii maadaama Iran adeegsanayso xeelado ay kamid yihiin badbadilitaanka wadiiqaadka duulimaadka iyo xawaaraha gantaalkan si u jahwareeriyaan daafacyada lidka gantaalaha ee Mareykanka
يحلفديسا خيبر شكان أي سيدو كلا أدك تهي إن لبربريو محايالي وحو ليهي hab dhaqaaq aan caadi ahayn oo aad isu badbedela iyadoo qaarkood ay madaxa uga xiran yihiin matoor yar oo ka saacidaya madax dagaalka qarxaya inuu ka fuuqo qaybta kale ee gantaalka marka la gaaro wajiga ugu dambeeya duulimaadka taasoo keenaysa inuu jihada bedesho isla markaana uu isku ligo bartilmaameedkiisa isagoo ku socda xawaare dhan 10,000 kilomitir saacadii sida uu qoray WSJ waxa jirta arrin kale Iran waxay gantaalkan Khaybar Shakaan raacisaa gantaalo kale iyo daroono aan casri u ahayn sida isaga si ay uga saacid caleeyaan daafaca lidka taasoo adkeynaysa in isaga laftiisa la qabto maadaama sidoo kale loo baahan yahay in kuwaana lala tacaalo waana gantaalkan ku bartilmaameedsadaan hanaanada daafacyada dalka Mareykanka ee gobolka yaala iyo hoosooyinka ay ku dhuumanayaan militariga Mareykanka oo imika ka xeebay xeryahoodii ciidan ee ku yaalay guud ahaan bariga dhexe ilaa Sham sida uu qoray warqaadka WSJ tan kale Iran ayaa waxa la rumaysnaa inay haysato ilaa 2500 oo ah gantaalahan Khaybar Shakaan ee ridada dhexe dagaalku intaanu bilaabanin ka hor waxa dheer Fabian Hinz oo ah nin sheegtay inuu yahay khabiir ku takhasusay arrimaha gantaalaha oo sheegay in la burburiyay warshadihii lagu sameyn jiray matoorka gantaalkan Khaybar Shakaan balse waxa la yaaban yahay in ilaa imika ay Iran gantaalkan soo ridayso tu aan la aqoonin sida ay ku dhacday Iran ayaa sidoo kale la sheegay in xoga ka heshay isla gantaalii hore ay u gantay si wax uga bedesho fursadaha uu gantaalkan ku gaari karo bartilmaameedkiisa sida uu sheegay isla Hinz dhanka kale Iran iyadoo ma sheegin qiimaha ku baxa sameynta gantaalka Khaybar Shakaan yalka dadka umuurahan u dhuun daloola ayaa WSJ waxay u xaqiijiyeen in gantaalkani aad uga raqiisan yahay daafacyada qabtayaasha ah ee Israa'iil iyo Mareykanka ee loo darbay inay gantaalkan burburiyaan kuwaas oo qiimahoodu u dhaxeeyo midkiiba 2 milyan ilaa 15 milyan oo doolarka Mareykanka ah taasoo hadba ku xiran hanaanka laga hadlayo waxa dheer in Israa'iil ay sheegtay inay soo riday gantaalo badan oo ah noocan Khaybar Shakaan oo ay ku jiraan xitaa qaar lagu bartilmaameedsaday hoyga wasiirka koowaad ee Israa'iil Benjamin Netanyahu aan sidoo kale imika uu Mareykanku aad uga careysan yahay saxnaanta shiishka gantaalaha ay soo rido Iran kadib markii ay ku weerartay xarumaha loo yaqaano kuwa ammaanka ah ee hay'adda sirdoonka caalamiga ah ee CIA oo aan markii hore la sii ogeyn kuwaasoo badanaa ah saldhigyo seerlaawayaal ah oo aanay dadku ogeyn ama qarsoodi ah aanu Mareykanku la yaaban yahay cidda Iran u sheegtay saldhigyada qarsoodiga ah ee CIA-da Maxamed Xaaji Hadalsame TV Yo